وزيرka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Xukusi saxaafadda Soomaaliland gudaha maxalliga waxa qoraysay dalka shirad Uganda ka qayb gashay ay arrimihiisa ka hadlayeen lahayd shirkaas waa shir loo qabanayay maamulka goboleedka ka waran ujeedada shirka ka qayb gashay dalka Uganda faa'iidada Soomaaliland ugu jirtay iyo waliba shirka cid ku soo casuumtay ka qayb galisay horta ma ahayn saxaafadda oo dhan ma ahayn waxa qoray wargeys yaro mid imaka saxaafadda ku cusub uu ka yahay tafatiro had iyo jeer wax mala awaala iyo wax maskaxiisa ka dhashay u yaqaan inuu war ka sameyn karayo shirkan aanu tagnay waa shir caana waxaanu tagnay shir ay diyaariyeen urur goboleedka IGAD hay'ad ay leeyihiin oo AU Iber la yiraahdo oo daneeya xoolaha nool waa hay'ad muddo dheer inagala shaqeynaysay oo dalka degan oo urur goboleedka IGAD dhulka uu ku siman yahay oo dhanna ka hawlgasha faa'iido badan bay ina tartaa shirka waxa ka soo qayb galay maamulka Soomaaliya ee Muqdisho Somaliland Puntland FAO EU iyo maamul goboleedyada galmudug iyo Jubbaland iyo warun ka soo qayb galeen iyo maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed laakiin wad ogtahay inaga waxa la yiraahdaa Somaliland Republic iyagana waxa la isku yiraahdaa federaalka Soomaaliya shirkaasi inagu dambeyn lahay dantii aynu lahayna waxaynu gaadhnay guul intii aynu ka doonaynay iyo waliba dheeraad shirkaas wuxuu ahaa nolosheenii oo dhan baa ku xidhnay waxa lagaga hadlayay arrin dhaqaale arrin siyaasadeedna ma waxa lagaga hadlayay daneeyayaasha xoolaha nool ee baandka la saaray ee Saudi Arabia ay ka qaadan jirtay in xoolaha nool sidii Sacuudiga loola geli lahaa ittifaaqiyad iyo heshiisyo cusub oo suurto gelinaya in xoolihii la inoo soo furo waad ogtoo waxa garab socday in dhakhaatiir Saudi Arabia ka socota ay yimaadeen Hargeysa oo ay tageen Berbera oo ay Burco tageen oo iyaguna ay hubinayaan waxa ay naga iibsanayaan oo ah xooluhu halka ay ka yimaadaan iyo in shaqadii loo baahnaa aynu qabanno iyo inaynan qaban shirkaasi aynu tagnay oo aan horena u tusay saxaafadda adeer urur goboleedka IGAD ayaa shirka lahaa inankii wuxuu kala garan waayay maamul goboleedka iyo urur goboleedka eraygan gobolku ku dawaqay marka waxa meesha ku jira waa arrin dhaqaale nolosheenii waxaanaynu gaadhnay guul ah inay xoolihii noo furmayaan muddo yar oo kooban waxyaabihii khaladaadka ahaa ee inagu dhacayna waxa ka mid ahaa oo imika aynu ka gaashaamanay oo shirkan iyo Sacuudiga inoo yimi iyo ku dambo dhici doonaba aynu doonaynaa inaynu gaadhno in aanu neefka lo'da ee Muqdisho xanuun lagu sheego loo xidhin ariga Berbera ka dhoofay walu fiirsaad inaanay waxa ka dhaca Berbera Muqdisho loo xidhin waxa Muqdisho ka dhacana aan Berbera loo xidhin inay kala noqdaan sida ay kala yihiin labada dawladood iyo labada dal ee jaarka ah sida aynu Ethiopia jaar u lanahay marka waa dhinaca siyaasadda ayaan doonaynaa dhinaca dhaqaalaha sidaa noqoto oo aan mar dambe xayiraad Sacuudigu keenayana in wada saameynin roobku way ilan marino moodadee ilaahay inaan ka baryayna inaanay cidnaba Soomaali ku imanin dhibaato xoolaha usaysa waa arrin nololeed maaha wax inaan yar ku feegaro oo weerarey iska yiraahdo shirkaana waxaynu gaadhnay guul xoolihiina waa loo furayaa dalka wixii ilaahay inooga idmana waynu ka calfan doonaa inana haddaynu goldololo yeelano waynu iska dabooleynaa Sacuudi Arabia dhinaceeda haddii ka jirtayna waa la daboolaya